السلام عليكم كسر هذا channel كيجا مودن سومالي فود فيديو عن مانتي إنه هي تحنا هنا بشبركة سنة رمضان وحويان ملوح دش هوست اللي جا قدري بيد سأل أركيسان وصباحي إنتان فيديو جينا جود جلين هدي الchannel كيجا كعصبت هاي فضلا سبسكرايب إيسار هدي كلنا إهل كجا أصحاب هذا الوداع cuntada maanta waxa aad u baahan tahay waxyaabaha soo socda si aad u samayso marka ugu horeysa waxa weeyaan hal koob oo caano ah marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa insha Allah mulawaxina ayaan qasaynaa marka hal koob oo caano ah waxa aan ku jabinayaa xabad beed ah ama xabad ukun ah qoraalka dusha ayaan idin soo saari doonaa sidii caadada inoo ahayd in yar oo milix ayaan dusha kaga darayaa sidoo kale in yar oo olive oil laba milqaacadood meelaha oo olive oil ayaan ku darayaa because ma doonayay in mulawaxigu dry ama qaleel iga noqdo marka aan sameynayo koob badhkii oo daqiiqa ayaan ku darayaa mulawax badan ma sameynayo marka haddii aad family badan tahay meelaha koob ama laba koob ayaad ka sameysan kartaa insha Allah qiyaasta mulawaxa kulliba adiga mid ku gaara ayaad haysataa marka imkan intan waa intii basic ahayd ee la wada yaqaanay marka mulawaxi ayaan sameynayaa blenderkaygana waan ku samaystay si wax kuskuusa una igu yeelan uu soft ii noqdo mulawaxa dadka qaar baa markay sameynayaan sonkor ku dara laakiin maanta maadaama oon hoosta ama gunta beed iyo waxyaabo kale kaga darayo wax sonkor ah ma taabsiinin waxaan doonayaa inuu yacni macaan iga noqonin marka mulawaxayga ayaan hadda dubayaa dab khafiif ayaan ku dubayaa si fiicanna uma casaynayo waayo dab labaad ayuu galayaa marka isagii oo xoog u casaanin ayaan ka qaadayaa si hadhow toole marka dambe aan dabka ku celiyo una iga guban oo midabkii yani caadiga ahaa golden brown ka ahaa ama gaduudka ah uu hadhow u qaato sidaas ayaan kaga qaadayaa xabadaasi tusaale ahayd beedka ma ukunta sameynaya waxaan ka sameynayaa hal xabo basal oo soo jarjartay sidoo kale barbarooni nooca greenka ah laba xabo oo tamaandho ama yaanyo ah iyo beedkii inta marka adiga kugu filan anigu 3 xabo ayaan hadda sameynayaa adiga inta kugu filan ayaad insha Allah qasan doontaa waxaan ku guda jirnaa wali waa taxanaheeni aan ugu talagalay bisha barakeysan Ramadaan marka haddii aad channelkay ku xidhan tahay waxaad ka heli doontaa insha Allah Ramadaan day 1 ama maalinta koobaad ee Ramadaan ilaa maanta maalinta aynu marayno ayaad insha Allah heli doontaa fiidiyo taxana ah haddii aad markaa u baahato fikrad inaad ka qaadato inta Ramadaanta ka hadhay insha Allah taala waxyaabo aad soo gelin doonto waxaan rajeynayaa inaad channelkayga soo booqato fiidiyada aad eegto Ramadaanka aan ugu talagalay ku jira ama fiidiyadii markii hore aan soo geliyayba imika waxaan bilaabay inaan sameeyo cuntadii ama beedkii ama ukuntaydii si aad arkaysaan waan isku wada dardarayaa insha Allah basashii markii isoo yara casaatay dusha waxa aan kaga daray barbaroonigii nooci greenka aan haystay dabka had iyo jeer ka khafiifi si ay kuugu bislaato hal xabo oo tamaandho weyn ama laba xabo oo tamaandho yar yara kolba kii ku fudud cuntadan waa cunto simple kale dad badan way yaqaanaan laakiin maadaama channelkayga aniga dad badan oo iska bulaasan hore u soo sheegay ku xidhan yihiin waxyaabahan kale iyaga aad ayay u anfacaysaa muhiimadda channelka aan u sameeyay waxa weyn cunto fudud oo cid waliba karin karto rag iyo dumar yar iyo weyn qof arday iyo qof aan arday ahayn uu sameyn karo ayaan ugu talagalay sababta darteed ayaan waxyaabo fudud soo geliyaa aan waqti badan qaadanaynin ukuntii hadda waa iska soo dhadhowdahay ama beedkaygii sidoo kale channelka waxa rabaa inaan idinka faa'iideysto insha Allah taala fiidiyadii aan soo dhigay intii hore maalmihii hore haddii aanad hore u soo daawanin fadlan soo daawo comment ka soo bixi insha Allah way waa taxana socda marka kulli wuxuun baad ka faa'iideysaa imika haddii aan ku soo noqdo cuntadeena maanta sameynay beedkii waan soo samaystay mulawaxayga waan soo diyaarsaday kaliya waxa idin tusayaa sida aan iskugu darayo mulawaxa ayaan marka hore beedka dhexda ayaan ka saarayaa ha ku badinin kadibna waxaan isticmaalayaa cheese-kana waa nooca burgerka loo isticmaalo haddii aad nooca kale cheese-ka haysatana ee budada ana waa caadi marka ha ku badinin beedka si uu kugu laabmo afarta dhinac ayaad ka soo laabaysaa kadibna dhinac ayaad dhigaysaa waa isku laalaabaysaa way wax la diidayaa inuu daato kala daato way hadhow toolana maqlaha ayaan dib u saarayaa wuxuu ii noqonayaa cunto yar oo fadhida
haddii aanad hawshan badan jeclayna bas beedkaaga iyo mulawxaaga markaad samaysato intaasoo kaliya ayaad isku cuni kartaa laakiin yacni bisha barakeysan ee Ramadaan waad ogtiin cuntooyin kala duwan oo indhaha soo jiidanaya la jecel yahay waxyaabihii la cuni jiray ama rootiinkii la cuni jiray in la yara bedelo dadku jecel yihiin marka waxa weeyaan fikrado kale oo badan caruurta kalena sandwich bay moodayaan oo yara xiise yara galinaysa inkastoo waxyaabihii caadiga cuni jireen ay tahay laakiin haddana wax cusub ayaa la moodayaa marka waxa weeyaan fikradaha aan rabo inaan idin la wadaago inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxyaabaha anigu aan samaysto shakhsiyan ayuun baan idin soo duubaa markaan chance ka helo marka imika markii aan idin ku lahaa mulo waxa dusha xoog ha uga guduudinin ama yani ha uga casaynina sidan ayaan ka wada waay dabka ayaa mar labaad lagu celinayaa labada dhinac ayaa laga yara shiilayaa imika lama moodo mulo wax imika wax kale uu ekaaday laano waxa weeyaan beedkii baa lagu riday siro kuusan oo ayuu noqday oo sandwich oo kale hadana waa la caseeyay dusha laga caseeyay marka masha Allah tabaaraka raxmaan wax ka yara duwan waxyaabii hore cuni jirtay ayuu buu ekaaday even though uu yahay hadana wixii aad cuni jirtay marka fiidooga maanta aan idin la wadaagaya waa fiidoogaas intaas weeyaan Allahumma baarik lana fi ma razaqtana wa qina cadaaban naar ilaahay inta haysatana u siyaadi inta aan haysanna ilaahay intan iyo in ka badan basi aad ayaad ugu mahadsantihiin sidaad mar walba ii dhiirigelisaan oo channelkayga ugu xiran tihiin inta fiidoogiisa ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihayso weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaarba kun bay si hagaajisaaye haddaad ku hungowdo kaalin hareer kala soo tijaabi